sidaad u jeedaanba maanta waxaa halkan la dhigay laba dhagar qabe oo ku toogtay si xaq darro ah maalin Ramadaan nin lagu magacaabo Aboorey oo ganacsada ah oo shacab ah oo waxba galabsan nimankan caadiystay baabainta dadka islaamka ee Soomaaliyeed ee waxba galabsan maanta waxaa laga waraabiyay waajibkoodii waxaan uga mahad celinaynaa ciidamada booliska ah ee howlgalkaas qabtay iyo bulshada reer Madiino oo si dhab ah ula shaqeysay waa uga mahad celinaa waxaana Ilaahay uga baryaa maskiinka dhintay in Jannatul Firdaws uga bashaareeyo oo ay dhagar qabayaashu dileen ahalkiisana waxaan leeyahay sabr iyo iimaan Allah idinka siiyo sidoo kale saraakiisha ciidamada iyo dhammaan ciidamada booliska Soomaaliyeed shaqada ay wadaan hasiil labaano waxa way cadawgan waa naflacaari waxay caadiysteen inay baabi'iyaan horumarka Soomaaliyeed iyo dadka bulshada ah nafaadkooda inay si xaq darro ah ay ku baneystaan inay dilaan waa uga mahad celinaynaa talaabada ay maanta qaadeen ciidamada iyo shacabka iyo dhammaan maamulada wadajir iyo Dharkeenley sidoo kale waxaan rabaa inaan baaq u diro madaxda qaranka iyo midda heer gobol baaqaasoo ku aadan saraakiisha ciidamada iyo dhammaan bulshada kala shaqeynayso ka hortagga iyo ka dabatagga dadka ummadda Soomaaliyeed gumaadayo inay abaalmarinta ay mudan yihiin siiyaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u jeedinayaa baaqaas madaxda qaranka iyo midda gobolka waxaan rajaynayaa inay aqbali doonaan ayagana waxaan leeyahay shaqadiina si laab haddii ahaan lahaayeen ciidamada iyo haddii ahaan lahaayeen bulshada sida dhab ah ula shaqeeyay maanta iyo waqtiyada la soo dhaafayaba sida loo qaban lahaay oo gacanta loogu dhigi lahaay ayagoo nool ama ayagoo dhintayba dadka ummadda Soomaaliyeed gumaadayo waa ku mahadsantihiin shaqadan hala si laabo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.